asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran janaalkan soo dhowaada. waa mar kale iyo muuqaal cusub. muuqaalkanini maantana waxaan uga hadli doonaa arinta Suuse iyo Cumar ka dhaxaysa. halkee ayay gaari doontaa, halkees ayay ku dambeyn doontaa. daawad haddii ay tahay markii koowaad janaalka soo booqo, subscribe noo saar, sidoo kale muuqaalka like noo saar. waxaana aad iyo aad idinka mahad celinayaa muuqaaladii u dambeeyey like-ta aad saarteen. sidoo kale haddii aad awoodiin isku day inaad muuqaalada noo shargaraysiin. waatay kusoo dhawaada muuqaalka maanta. haddaba saan wada ognahayba xalqadii u dambeysay xoogaa yar isku dhaca wuxuu ku yimid Suuse iyo sidoo kale Cumar. markii uu Cumar u qaaday hoteel, isla markaan hoteelka loo diiday in ay galaan, loona sheegay hoteelkan in loogu talagalay dadka waaweyn oo keliya. isla markiina ay Suuse tiri maxaad ka baryaysaa. Cumar wuxuu isku dayay ninkii hoteelka hayay ama ninkii hoteelka waardiyaha ka ahaa in uu lacag siiyo, isla markaana ninkii waa uu diiday, lacagta ayuu u kordhiyay. ninkii haddana waa uu diiday, lacagta ayuu mar kale u kordhiyay isagoo qaadan rabay. Suuse soo baxday tiraan hoteelkan ma galayay. Cumar ayaa kasoo dababaxay ayay ahayd, wuxuuna ku dhahay Suuse maxaa kugu dhacay, aniga adiga dartaa wax walba u sameynaya. markaasay Suuse ku tiri Cumar wax walba lacag laguma qaadan karo ama wax walba lacag laguma hanan karo. hoteelna loo diiday, ani runtii baryadan kuma galayay haddii xitaa la yeelo mar baadina loo diiday. sidoo kale ma hoteelba magaalada ka weynay. isla markaana waxay tiri anaga saan uma dhaqano haddii aan tirinahay. Cumar inta ayuu ka xanaaqay oo wuxuu ku dhahay anaga maxaad ka wadaa, macnaha ma waxaad ula jeedaa aniga inaan taajirnimada ku cusubahay. Suuseen waxaa ku tiri aniga saa ulama jeedii, ee labadeena ayaan ka hadlaynaa. waa nagu qalad hoteelna loo diidan yahay inaan qasab ku galo. cuntadana adiga ha kuga ekaato, aniga waan kaasii tagayaaye caafimaad igu cunaya ku dhahaysaa, wayna kasoo tagaysaa. Cumar asagoo meesha iska taagan waxaa u timaada ayay ahayd qoftii Leela ahayd. isla markaana waxay ku tiri Cumarkii yaraayo halkan maxaad ka qabanaysaa. isagana wuxuu yidhi cunto ayaan u imaaday. markaas kabacdi waxay ku dhahaysaa maad cuntay. isagoo wuxuu dhahayaa maya ma cunin. ayaduna waxay dhahaysaa waay aniga xataa waa gaajaysanahay, kaali gaadhiga kugu sii dhaweeye, cuntana halkan kasii wada cunee. ugu dambeyntii waxay isjijiidaanba Cumar wuxuu garanayaa inuu gaadhiga raaco. Leelana sidaas ayuu ku raacay ayay ahayd. sidoo kale Leela markii ay damacday markay cuntada dhammaysteen in ay sawir wada jira galaan, Cumar waa kii ku dhahay sawirkan public ha ka dhigan ama dhammaanba dadka la wadaagin, adiga keliya kuga ekaado. ayaduna way ka aqbashay. waa tahay aan usoo laabano mawduuca waxaan usoo galay dhammaanba daawadayaasha ama faniska SuseM ama #SuseOM, kaas oo loola jeedo Suuse iyo Cumar waxayba kasoo horjeedaan gabadhan Leela lagu magacaabo. qoraal ka mida qoraalada ugu hadalhaynta badan, isla markaana macluumaadada ugu hadalhaynta badan, isla markaana loo badinayo inay dhici doonaan waa kan. haddaba macluumaadkan wuxuu sheegayaa in aan la isla rabin Leela iyo sidoo kale Cumar aan la isla rabin, keliya la isla rabo Suuse iyo Cumar. waxayna xalqadaha soo socdaan arki doonaa inay isku dhacaan Suuse iyo Cumar. ha isku dhacaan ma xumee, waxaa sabab u noqon doona arrinkaas ninkii beerkii lagu magacaabayo oo markaan shariirnimo kusoo laabtay iyo khaa'inimo iyo laadirnimo ayaa u sheegi doona Suuse. markuu Suuse u sheegay kabacdina Cumar xoogaa isku dhacayaan, laakiinse ma kala tagi doonaan. sidoo kale Suuse ayaa laga masirsiinayaa Leela, laakiin waa kuwa isku soo laaban doona. yacni ma ogi xalqadaha waxa ka dambeeya markay isku dhacaan kabacdina isku soo laabtaan mar kale inay kala tagayaan ma sheegi kari, ama mustaqbalka yacni xalqadaha fog ee soo socda kala tagooda ma sheegi kari. laakiinse waxaa kaliya ogahay ama naloo sheegay in xalqadaha soo socda isku dhici doonaan, isla markaana ay noqonayaan kuwa heshiiya. inkastoo fanis cusub uu bilowday kuwaas oo taageeraya Leela iyo Cumar, laakiinse weli hashtag looma sameyn. marka hashtag loo sameeyay ayaan arkaynaa hadalhayntooda. hashtag la-aanna wax ma socdaan, ilaan hashtag waxa kaliya ku dhibireynaya inaad aragtid macluumaad ama hadalhayn la hadalhayo ama xan ka socota labada hashtag loo sameeyey. soo marka taageerayaasha SuseOM runtii aad ayay u bateen markaani, mana doonayaan gabadhan lagu magacaabo Leela. waxayna rabaan in aysan kala taginba Suuse iyo Cumar. haddaba sidoo kale dhacdooyinka ugu waaweyn ilaa iyo haddana hadalhayntoodu badan tahay. sidoo kale haddii xasuusteen muuqaaladii aan soo dhignay mid ka mid ah ayaan ku sheegnay ayay ahayd, laakiinse arrinkaas muran ayaa laga keenay ayay ahayd. arrinkaas muxuu yahay?
waa arrinka ah Aasiya qofkii la ciyaaraysay shaxda. Mar waxaa la leeyahay waxay la ciyaaraysay Yasmiin, marna waxaa la leeyahay waxay la ciyaaraysay Sarb, marna Tolga ayay la ciyaaraysay ayaa la leeyahay. Haddaba badi waxaa soo rumoobi rabtaa ama looga shakiyey xaalitoole Sarbi ninka lagu magacaabina Aasiya la ciyaaraysay, sababtoo ah Durug ayaa dhanka Twitterka kusoo tweet gareeyay isagoo leh mar waliba Aasiya guushu waa dhankaaga, Aasiyadii jacaylkayga ahaydna waa tan. saa darteeda mar baa dee meesha guul timaaday, qofkay Aasiya la ciyaaraysay waxaa la ogaaday inuu yahay Sarb, laakiinse lama hubaya. waxaa laga yaabaa in ay tahay Yasmiin iyo sidoo kale in ay tahay inuu yahay Sarbi. soo marka Durug wuxuu hadalkaas u dhahay maadaama Sarbi asaga xitaa ay isdagaali doonaan, inkastoo goosgooskaan ku aragnay Cumar iyo Sarbi oo isdagaalaya bas, laakiinse Durug xitaa way isdagaali doonaan, markaani Durug xitaa way isdagaali doonaan. sidoo kale gabadha Yasmiin ahayd basaan mar walba idinku sheegayna muuqaal walba beerkii ayay wax ka dhaxayn doonaan ama waxay kala dhaxli doontaa #ibeer. inkastoo ibeer hadal hayntiisu ay yaraatay markaan maadaama isku dhacsan yihiin, taageerisaas ah male. toddobaadkan waxaa rajaynaynaa lamaanayaasha ugu hadal haynta badan in ay noqdaan makaaninta koowaad kuwa gali doona inay noqdaan Suuse iyo Cumar, maadaama markaan aad loo xiiseynaya sheekadooda. haddaba sidoo kale waxaa isweydiin mudan beerkii goormuu u sheegayaa Suuse wax waliba oo jira. badi sida loo badinayo beerkii maadaama uu yahay nin xanaaqsan wuxuu u sheegi doonaa xalqadaha soo socda. sidoo kale mid kale waxaa jirta aad iyo aad la isweydiinayo beerkii ma laga yaabaa Aasiya iyo Cumar inuu kasoo horjeesto islamarkaana uu la dagaalamo uuna ku dhaleeceeyo ama uu ku caayo in guri aysan lahayn isku dhadhajinayaan islamarkaana gurigii laga soo eriyey lagana soo buriyey. si kastaba ha ahaatee saddexda walaalo xalqada soo socotay 59aad iyo xalqada 60aad ba, inkastoo xalqada 60aad aan la rajaynaynin, waxay la joogi doonaan qoftii lagu magacaabayay Gunuul. daawada markaa muuqaalkii waxaan soo gaarnay dhammaadkiisa. fadlan daawada muuqaalka like noo saar. muuqaalka xigan waxaan rajaynayaa inaan ka soo hadlo arrinka ah saacadda dhex taalla Cumar iyo aabahiisa iyo sida uu u bixin doono. ma xiisaynaysaa barnaamijkaas ama macluumaadkaasi, mise macluumaad kale oo rabtiin wax laga siiya ayaa jira? fadlan hadduu jiro dhan commentiga nagula wadaag si aan usoo gudbino macluumaadkaasina aan uga daba tagno oo aan usoo raadino. kolley gooskooska ayaa dhow, wuxuuna soo bixi doonaa beritoole oo Arbaca. subaxda Khamiistana insha Allahu tacaala waxaan rajaynaya halkan inaan kusoo faalayn doono, maadaama habeen kala bar soo baxaayo dee ilaa 12 oo soo baxaayo. subaxda Khamiista ayaan rajaynaya inaan halkan kusoo faaleeyo, inkastoo laga yaabay in gooskooska baaqiyaan sidii xalqadii tan ku horeysay. marka muuqaalkeena intaan ayuu ku egyahay. muuqaalka like noo saar. waanigu saaxiibkeena Khaalid sidii caadadan ahayd. waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.